muslimiintu isku damqadaan saas kugu duubnaadaan caamada iyo culimada in isku xidhnaato dhalinyarada iyo odayadu in isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan inama almu'minuuna ikhwa ummad buu nabigu diyaariyey ummad ninka la oran jiray qays ibnu mataatiya alkhasraji مسكيتي النبي قال نصوب عليه الصلاة والسلام وخزرجي هلكا وحافظ الأنصار أوس خزرج مهاجرين حلقات وحدول تجي بلال يا سلمان يا عمار يا فديان برقاس الكوة هديت ولا محل وقب حي هاي كوة ننكو تلكي بو هلايا معاذ بن جبل بانيكي هلكا قبتي ومحاتري وان كفتمنا هذا كان وان هداي مركز معاذ هلكا اسقو هيو نبيga ninka u geeyay sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulka wajigiisii bedilmay masaajidku soo galay manbarku fuulay saxaabadii oo dhan baa loo wada yeeray khudbadu nabigu bilaabay khudbad dheer ma hayna khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yiri wariyaada rabbigiinu waa mid kaliya buu diintiinuna waa mid kaliya عربيتنا أبي هوي إنما أبوكي فمن تعلمها أنك اللغة العربية كهذا الكي قبرتي وعربي أنت أمرك النبي يقول خطبتي كذا داعي معاذ بن جبل ولي نك هالكي بوحيا كان النبي الله محاذ ورم بوكيري كا نار تؤدى أبوري نار تاكا فلان نار تؤدى بوكيري مالنتي أبو بكر الله دورتي خلافة الله دورتي قبائل كير الدوبي isagoo murtada ninkii la soo dilay waa kalmada wuxuu diinta kaga baxay kalmad ummada casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeena wuxuu kuwa maxaa looga baahan yahay dadwal waa bilaal al-habashi salman al-farisi suhayb ar-rumi radiyallahu anhum ragi diinta islaamka asaaska u ahaa ayuu ku leeyahay kuwa maxaa looga baahan yahay نكو تلكي بو هل هديت ولا كلمة دا او يري با إلهي نك رحمتي كلا نقض